nabadgelyada naxariista eebe iyo barakooyinkiisu haydiin ahaadeen kuna soo dhawaada barnaamijka maqal fahan oo xusuuso waa anigoo ah Sayid Cali Macalin Ibrahim barnaamijka maanta aan idiin wado waxa uu ku saabsan yahay dhammaan dhacdooyinkii ku saabsanaa dagaalkii koowaad ee adduunka waxyaabihii sababay iyo siday wax u dhaceen qaybteedii koowaad sanadkii 1914 waxa si aan kala go' lahayn u bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka waxaana sababay dhacdooyin aad u badan aan kaaga soo qaado mise aan ku tilmaamo dhacdooyinkaas qaar kamid aan kugu bilaabo qaybta koowaad ee waxyaabihii sababay inuu bilowdo dagaalkii koowaad ee adduunka nidaam isbahaysi ah dagaalkaasi aan la wada soconaba laba qayb ayuu ahaa dhan midig iyo dhan bidix dhanka midig ama allianceska waxaa hogaaminayay Britishka France iyo waliba Russia dhanka midigeedna ama dhanka bidixeed aan dhahay waxaa hogaaminayay dalka Germany Austria Hungary iyo waliba Italy oo uu dagaalka bilowgoodii u dhaxeeyay shay labaad aan isdhihi karo dagaalkii koowaad ee adduunka saameyn ama cows ayuu ka ahaa waxa weeye tartan xagga ciidanka intii u dhaxaysay 1900 ilaa 1914 dunidan aynu ku noolnahay waxa ka jiray tartan xagga ciidanka ah oo ay ku tartamayeen wadamada doonaya in ay qayb libaaxa ka noqdaan ama ay maamulaan dunidan aynu ku noolnahay sanadkii 1905 dalka British ayaa ku dhawaaqay in uu sameystay markab dagaalka uu diyaar u leeyahay wadan walba ee soo weerar lahaa inuu uga hortago shaygii ugu weynaa ee aan dhihi karno wuu bilaabay ama wuu dilaaciyay dagaalkii koowaad ee adduunka waxa weeye shirqoolkii ka dhacay Sarajevo shirqoolkaas waxa loo geystay ninkii madaxa ka ahaa Austria iyo waliba xaaskiisa Franz Ferdinand iyo xaaskiisa dilkaasi waxa geystay nin lagu magacaabo Gavrilo Princip oo ka tirsanaa xirta ama gruubka Black Hand dilkaas ama shirqoolkaasna waxa uu dhacay 28 June 1914 dhibkii ugu darnaa waxa uu bilowday kadib markii Austria ay codsi ama amar ku taagleen ku bixisay in Serbia ay qaadato 3 amar oo ka soo fulay madaxdii ugu sareysay dalka Austria waa maxay saddexdaasi sababo aan ku tixo saddexdii amar ay bixisay dalka Austria kuna wajahnaa dalka Serbia loogana taagnaa in jawaab degdeg ah ay ka soo bixiyaan in gabi ahaanba Austria ay qoorta ka goyso dhammaan dadkii ku lug lahaa ama soo abaabulay propagandadii Austria lagu waxyeelay laba in Serbia gabi ahaanba ka takhalusiso ama hawsha ka fariisiso saraakiishii hawsha wax ka saddex in ciidamada Austria ama booliska Austria loo ogolaado in ay wax ka maamulaan ama soo galaan dalka Serbia way ogolaatay labadii qodob ee ugu horeeyay ay soo saartay dalka Austria laakiin waxay ku gacan saartay ama xaq ay u lahayd inay ku gacan saarto in Austria ciidankeeda ama booliskeeda la soo geliyo dalka Serbia si ay u xukumaan dalka intaas ayaan jeclaysay inaan idiin soo gudbiyo videogan waxaan u sameyn doonaa part 2 aan ugu warbixin doono dhammaan intii ka dambeysay barnaamijyada aan hadda soo tixnay videogan ha ka hilmaamin inaad siiso like share asxaabtaadana aad u gudbiso subscribe na aad noo saarto mahadsan